fanaaniin sabab yaab leh uga baxay fanka halka qaarkoodna ay hakad geliyeen soo qaadistii heesaha. halkani waa Alfa Media Group. haddii aad channel ku cusub tahay subscribe saaro gambaleelkana ha hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee xogaha aan baahino. ugu horeyn waxaan barnaamijka soo qaadanaynaa fanaanada lagu magacaabo Farxiyo Kabayare, taas oo sida nagu maqaalo ah fanka uga baxday dabeecad xumo darteed kadib markii ay la dirirtay dhammaan fanaaniintii kale ee saaxiibada dawla ahay sida Hodan Cabdiraxmaan oo mataanteeda fanka ahayd way la dirirtay. Farxiyo Kabayare oo ilma adeer yihiin waa la dirirtay. Ilka Casaqays oo kamid ahaa dadkii fanka soo galshay asagana waa isku dhaceen. Aamina Dhool oo iyaduna saaxiib la ahayd waxay ka xaday ama ka qayaantay lacagtii markii ay xanuunsaneed loo aruurin jiray, taasoo keentay in ay ayaguna la diriraan, taasoo keentay in ay ayana isku dhacaan Laki Xaaji Wacays iyo Xaawakiin, kuwaas oo saaxiib la ahaa Aamina Dhool. waxyaabo badan oo isbiirsaday dartood Farxiyo Kabayare fanka hakad ayay ka gashay, walina ma xaqiijin in ay toos uga baxday. dagaalkii u dambeeyana waxa ay la gashay fanaaniinta lagu kala magacaabo Xasan Gantaal iyo Xuseen Shire. sidoo kale waxaa jira fanaanada lagu magacaabo Hodan Afrika oo fanka iskaga dhaaftay sabab yaab leh, taas oo ahayd video laga duubay ama waraysi ay la yeelatay gabadha lagu magacaabo England Show in ay ku sheegtay xijaabka in uusan muhiim ahayn ama aysan weligeed baqaadan oo aysan barabin, laakiin markii ay magaalada Muqdisho tagtay cariirigii ama dhibaatooyinkii ay la kulantay ay ahaayeen in xijaab lagu qasbay. laakiin fanaanadan oo dhowr masrax kala kulantay falcelin kaga timid taageerayaasheeda ayaa waxa ay sababtay in lagu daqro show u dambeeyay ay ku qabatay magaalada Garowe, laakiin waxa ay go'aansatay in ay isaga baxdo guud ahaan fanka. fanaanada saddexaad ee sababta yaab kale uga baxday fanka waa Sacdiya Siman. sababta ay fanka uga baxday ayaa waxaa lagu macneeyay video fadeexa ah oo ay ka duubtay fanaanada lagu magacaabo Rasmi Rays. sababta Rasmi Rays video-gan u duubtay uguna bahaysay baraha bulshada ayaa waxaa lagu macneeyay masayr ay ka qaaday darteed in ay 10 sano la jilaysay xiriir jacayl oo ay si fudud ku guursatay Sacdiya Siman. laakiin markii video-gaasi baahay, Sacdiya Siman waxay guud ahaan go'aansatay inay hakad geliso waayaheeda fanka ama heesihii ay soo qaadi jirtay, waxayna isku bedeshay YouTuberad. hadda waxay u bedelatay dhanka YouTube-ka, taasi oo ay ku baahayso ama soo dhigto riwaayado. fanaanada afraad oo aan ku soo qaadanayno barnaamijka waa fanaanada lagu magacaabo Sabrina Musa, taas oo sabab yaab leh uga baxday fanka. sababta ayaa waxaa lagu macneeyay kadib markii ay wajigeeda qalliin casri ah ku samaysay. waxaa jirtay Sabrina Musa sida aad sawirkaanba ka arkaysaan, markii hore wajigeeda sidaan ayuu u ekaa oo waxa uu lahaa gooman ama lafo ka soo taagtaagan wajigeeda ay ama daamankeeda. laakiin waxa ay muddo markii ay hal sano fanka ku jirtay waxa ay qalliin casri ah ku samaysay wajigeeda, taas oo ka dhigtay wajigeeda waji aad u yar isla markaasina aad u qurxoon. laakiin waxay dhaleeceyn fara badan kala kulantay taageerayaasheeda iyo saaxiibadeeda ugu dhowaa fanka. taasina waxa ay dhaxal siisay ama ay sababtay in ay guud ahaan fanka isaga baxdo, xitaa ma timaado meelaha showyada ay ku dhiganayaan ama bandhig faneedada ay ku qabsanayaan fanaaniinta saaxiibadeeda ah. waxaa inoo xiga fanaanka lagu magacaabo Xabad Colaad, kaas oo gabi ahaanba iska joojiyay fanka. sababta ayaa waxaa lagu macneeyay fanis la'aan ama taageero la'aan oo kala kulmay dhagaystayaasha heesihiisa dhagaysta. fanaanka Xabad ayaa go'aan la yaab la qaatay, go'aankaas oo ah inuu guud ahaanba isaga baxo fanka. waxaa jira fanaaniin fara badan oo taageero la'aan ama xiise la'aan bulshada xaggeeda ah heesaha ay soo qaadaan oo ay waqtiga ku lumiyaan dartood uga baxa fanka oo dib uga laabta go'aankii ay hore u qaateen. waxaa inoo xiga fanaaniintii waayaha cusub sida Falis Cabdi Maxamuud, Shina Akhyaar iyo Lixley Digriyo, kuwaasi oo u tahriibay wadamada Yurub kadibna la waayay bartooda iyo muuqooda. waxaa jira fanaanka lagu magacaabo Digriyo oo marmar
boorka iska jafay oo heeso kala duwan soo qaaday laakiin uu dambeyn haddana muudkii ku laabtay laakiin markii ugu wardambeysay sheena aqyaar iyo lixle iyo Felis Cabdi Maxamuud waxa ay ahayd mar ay BBC-da u warameen oo ay u sheegeen in ay ku xayiran yihiin wadan Yurub oo lagu xayiray ama lagu xiray kuwaasi oo lagu tilmaamay in ay sharci darro ku soo galeen wadamadaasi wixii intaasi ka dambeeyay wax hees ah oo ay soo qaadeen ma jirto iyo meel masraxa ama bandhig faneed ay ka soo muuqdeen fanaaniintaasi ma jiraan guud ahaanba sidii ay Yurub u galeen waxayna u muuqataa in ay hakad galiyeen waayahoodii fanka sidoo kale waxa hakad galay waayaheedii fanka fanaanada lagu magacaabo Ikraan Caraale markii u dambeysay waxa ay dagaal culus kula jirtay ama ay dagaal kula jirtay fanaanada lagu magacaabo Felis Cabdi Maxamuud oo ugu dambeyn ay dadood ay xaqiijisay in ay labadoodu wada dhasheen taas oo noqotay filanwaa wixii intaasi ka dambeeyay Ikraan Caraale waxa ay fanka ka gashay muud ama waa ay ka gaabsatay masraxyadana lagu ma arko fanaanada lagu magacaabo Yurub Genyo ayaa iyaduna fanka hakad gelisay ama joojisay heesihii ay soo qaadi jirtay kadib markii ay magaalada Muqdisho dhacdooyin la yaab leh ama fadeexa ah ay kala kulantay ama ay ku sameeyeen dadkii ay ku soo degtay oo ay magaalada Muqdisho ugu timid 3 bilood kadib Yurub Genyo waxa ay u dooshay magaalada Hargeysa waxayna shir jiraa'id oo ay qabatay ku sheegtay in magaalada Muqdisho ay kala soo kulantay fadeexooyin ama dhibaatooyin la xiriira xagga dadkii ay ku degtay oo ay booqashada ugu tagtay Yurub Genyo hadda wax hees ah soo ma qaado masraxyada faneedna kama soo muuqato mana lagu arko waxay u muuqataa in waayaheedii faneed halkaasi ku soo idlaadeen ama ku soo gabagaboobeen sidoo kale fanaanka lagu magacaabo Ilka Casaqays ayaa guud ahaanba iska joojiyay heesihii oo soo qaadi jiray ama fankaba waxa uu ku biiray ciidanka maamulka Jubbaland waxa uu bilihii u dambeeyay ka soo muuqanayay jiidda hore ee dagaalka Jubbooyinka Ilka Case mar uu warbaahinta la hadlayay waxa uu xaqiijiyay in uu guud ahaanba isaga baxay fanka uusan u noqon doonin wadankii uu ka yimid ee Mareykanka laakiin uu ku nagaan doono Jubbooyinka halkaasina ka sii wadi doono halganka Jubbaland isku soo wada duubo markii aan baaritaan dheer sameynay sababaha ay fanaaniintani iskaga joojiyeen ama isaga hakiyeen fanka ayaa waxa inoo soo baxday ama noo xaqiiqowday ama aan ogaanay in ay sabab la xiriirta jeebxa in ay fanki isaga joojiyeen sababtaas darteed dhammaan fanaaniinta aan halkani ku soo xusnay digneyn waxaynu u digaynaa dhammaan YouTuberada naga qaata barnaamijyadeena oo aan ku soo baahino Alpha Media Group in ay ka bedelaan ama loogada Alpha Media Group ka saaraan barnaamijka haddii ay taasi dhacdo in aan copyright ku qaban doono ama aan la tiigsan doono sharciga YouTube-ka